World Cup-ka oo sanadkan ah mid ka xiiso badan sanadihii hore ayaa meel xasaasiya maraya iyadoo la gudagalay group wareegga ugu dambeeyay ee heerka group stageska lagu soo gabagabeynayay iyadoo xalay iyo shalay la ciyaaro kulamo aad u xiiso badan lana soo gabagabeeyay groupka A iyo B. waxaan ku isla fiiri doonaa kulamadii xalay iyo shalay la ciyaaro ah kuwa aad u xiiso badan, afartii kooxood soo baxday, kuwii haray, kulamada ilaa hadda la xaqiijiyay ee wareegga 16 la ciyaari doono iyo kulamada caawa iyo maanta la dheeli doono oo ah kuwa aad u xiiso badan. kusoo dhawaada barnaamijka saaxiibayaal. haddii aad nagu cusub tahay ama ay tahay markii ugu horeydo channelka daawanaysid, fadlan subscribe ugu cimaamad si aad u hesho wararkii iyo falanqeymihii ugu dambeeyay ee kooxdaada iyo guud ahaan kubadda cagta. mahadsanid. waayahay, soo dhawaada saaxiibayaal. si hore usoo sheegnaba World Cup meel xiisa leh ayuu marayaa. xalay iyo shalay groupka A iyo B ayaa lasoo gabagabeeyay oo lagu kala baxay. kooxda haddaan fiirino groupka A, Netherland ayaa groupka ku guuleysatay oo kaalinta koowaad kusoo baxday. kooxda Qatar oo wadanka martigelinayay koobka oo ayagu mar horeba koobkan ka haray ayay 2-0 uga badiyeen. Netherland runtii sanadkan waxay u muuqataa inay ka mid tahay kooxa u tartamaya koobka hanashadiisa, inkastoo weerarkooda markii la fiirsho ay ka muuqato inaysan ciyaarno badan xagga weerarka kooxaha waaweyn dhibaato u geysan kara aysan haysan. haddana runtii World Cup-kan ilaa hadda kulamadii 3 kulan ay ciyaareen waxay soo bandhigeen bandhig aad u fiican, waxaana kusoo baxeen kaalinta koowaad ee groupka ayagoo 7 dhibcood leh. Netherland, Cody Gakpo ninka la yiraahdo iyo waxaa goolasha u kala dhaliyay Frank de Jong ayagoo kusoo baxay kaalinta koowaad, taasoo ka dhigan inay la ciyaari doonaan kulanka ay dheeli doonaan wareegga 16 kooxda kusoo baxda group B kaalinta labaad kusoo baxda oo noqotay kooxda wadanka Mareykanka. Netherland runtii ciyaar aad u fiican ay soo bandhigtay, waxay la dheelisay kooxda wadanka koobka martigelinaya ee Qatar oo iyadu aan ilaa hadda aan guul ka helin World Cup oo kulamadii ilaa hadda ay dheeleen haddii aan fiirino dhammaan laga wada badiyay ayaa la dhihi karaa. waxaa garaacday san ogay kulankii furitaanka kooxda Ecuador ayaa 2-0 uga badisay, markii dambena 3-1 ayay Senegal uga badisay. kulankii ku xigana shalay ugu dambeeyay la dheelana waxaa 2-0 uga badisay Netherland. marka Netherland kaalinta koowaad ay group kusoo baxday, waxaana goolasha u dhaliyay saan hore soo sheegnay Cody Gakpo iyo laacibka Frank de Jong. ninkan la yiraahdo Cody Gakpo oo laacibkan kooxda PSV wuxuu u muuqdaa inuu u isticmaalayo World Cup-ka platform oo isugu muujiyay kooxaha waaweyn ee Europe si ay sanadkan ula soo wareegaan. ninkan aad ayaa kooxaha waaweyn loola xiriirinayay, gaar ahaan kooxda Manchester United. waa nin aad loo hadalhayo waayahan dambe suuqa kala iibsiga. nin gool dhalintiisu aad u fiican tahay, sanadkan goolal badan ayuu dhaliyay, waxaana runtii aad moodaa inuu kooxdan hadda Netherland oo yahay ninka garabka ku sida. waxaan arki jirnay Depay oo xulka si fiican ugu dheela. runtii markay si loo fiirsana Netherland dhanka weerarka waxaad moodaa inay sanadkan ka liidato oo aysan ciyaarno badan haysan. Bergwijn iyo marka laga reebo Depay iyo ninkan waxa kale oo laga soo reebaa waa wax aan af lahayn. marka Cody Gakpo mas'uuliyad weyn ayuu dusha iska saaray. hadda 3 kulan oo ilaa hadda uu dheelo World Cup group stage-ka 3 gool ayuu dhaliyay, waana mid kamid ciyaarnada gooladinta ugu badan hadda haysta World Cup-ka oo 3 gool ayuu dhaliyay 3 kulan oo ciyaaray. markaana kulankii kala daan fiirino, kooxda Senegal oo ah kooxdii ugu horreeyay ee Afrika ka socota ee u soo baxda wareegga 16 World Cup-ka ayaa Ecuador kulan aad u xiiso badan la dheeshay iyadoo 2-1 uga badisay kooxda Ecuador. Senegal oo runtii aan ognahay in laacibkoodii ugu weynaa ninkii garabka ku sida jiray kooxda ee Sadio Mane oo ka dhaawacmay World Cup-ka intuu soo bilaaban ayaa aad loo fiirinaya qaabka ay u dheelaan iyo waxa ay soo bandhigaan World Cup-ka iyo sida ay noqon karaan Senegal Sadio Mane la'aantiis. marka Senegal ciyaar fiican ayay soo bandhigtay, inkastoo Netherland ay ka badisay, haddana labadii kulan ay soo haray ee groupka way badisay oo Qatar iyo Ecuador way ka badisay, iyadoo sidaas kaalinta labaad ugu soo baxday groupka A. Senegal ciyaar aad fiican ay soo bandhigtay, 1-0 ciyaarta penalty ay heleen waxa u dhaliyay ninka la yiraahdo Ismail Sarr, iyadoo markii dambena Ecuador ay ciyaarta 1-1 ka dhigtay. markii dambena oo kabtanka kooxda Senegal Kalidou Koulibaly ninka kooxda Chelsea difaaca uga dheela oo goolkii guusha dhaliyay. Senegal ayaana sidaas ku noqotay xulkii Afrika ka yimid ee ugu horreeyay ee u soo baxa World Cup-ka wareegga 16 sanadkan, ayagoo la ciyaari doona kooxda ku soo baxda groupka B kaalinta koowaad ee ah kooxda wadanka Ingiriiska. sidaasna group A ayaa kusoo gabagaboobay. kooxda Netherland iyo Senegal ayaa groupkaas ka soo baxay, halka ay Ecuador iyo Qatar ay ka hareen. markaan haddaan fiirino group B, kulamadii aad ku xiiso lahaa xalay la ciyaaray Iran iyo USA. kulankii derbiga siyaasadda ayaa la dheelay, sidoo kale kulan asagana Britain derbi ah ayaa la dheelay oo Wales iyo England ayaa ciyaaray. haddaan fiirino kulankii Ingiriisku 3-0 ayay ku badiyeen kulan
aad u xiiso leh ayuu asaguna ahay, inkastoo Wales ay aad uga jajabneed sanadkan, laakiin waxaa la dhihi karaa inay World Cup ka yimaadeenba marka hore aan filayno maaragtay inay World Cup ka yimaadeen ayuu ku faraxsan yihiin. way hareen, Iran ayaduna way hartay, USA iyo England ayaa groupkas ka soo baxay, Ingiriiska ayaana kaalinta koobaad ku guuleystay oo groupkaas ku guuleystay la dhihi karaa 7 dhibcood, halka USA ay ayaduna 5 dhibcood keensatay oo ay ka badisay Iran. Ingiriiska kulankiisa daan fiirino, Marcus Rashford ayaa 2 gool ka kacay labaaley. macallinku waxaad moodaa in maaragtay eedayn badan oo loo soo jeediyay kulankii ay la dheeleen Mareykanka oo kulan caajis ahay darteed oo shaxdii wax ka bedelay Phil Foden iyo maaragtay wuxuu ku soo bilaabay ninka la yiraahdo Marcus Rashford. waxaa sidoo kale oo labada garab ka wada ciyaarsiiyey Foden iyo ninka la yiraahdo Walker oo iyagana Man City ka wada tirsan, iyo Rashford iyo Luke Shaw iyagana Manchester City ka wada tirsan oo fahan maaragtay fiican uu ka dhaxeeyo. half time-kii hore inkastoo caajis ahayo ever head, haddana half time-kii dambe Marcus Rashford free kick ayuu dhaliyay, waana free kick-tii ugu horeeyay ee sanadkan laga dhaliyo World Cup-ka, oo direct free kick-tii ugu horeeyay laga dhaliyo waaye. marka Rashford oo arki jirnay inuu free kick maaragtay xoog badan awood ku dhisan oo shuudo, xalay free kick ay ku jirto xoogaa technique iyo awood isku darsan ayuu dhaliyay qurux badan. gool labaad ayuu ku tuurtay, goolka kalena waxaa dhaliyay Phil Foden. Ingiriisku markii la fiirsho awoodooda ay soo bandhigeen koobkan adduunka markii laga reebo kulankii ay la dheeleen USA, kulamadii kale ciyaar fiican ay soo bandhigeen runtii. waxaadna moodaa inay yihiin kooxaha ugu halista badan marka la yiraahdo xagga weerarka. markaa fiirso ciyaarada ay haystaan Saka, Rashford, Foden, Sterling, Kane, waxa laga sheegay male. Bellingham ciyaarana ay haystaan xagga weerarka markii la yiraahdo, laakiin saas ay tahay haddana Ingiriisku mar walba meel ay leeyihiin, inkastoo hadda groupka kaalinta kood ku soo baxeen, kaalinta labaad kooxda ku soo baxda groupka A ay la dheeli doonaan oo ah kooxda Senegal. waa kulan runtii loo saadali karo inay badi karaan ayaa la leeyahay, sidaasna ay quarter final ku aadi karaan. marka Ingiriiska rajo fiican ayay leeyihiin. USA iyo Iran kulankii maaragtay siyaasadda asagana USA ayaa badisay. Iran inkastoo dadaal fiican ay muujiyeen oo kulankii Wales ay bandhig fiican soo bandhigeen, haddana xalay waa laga badiyay oo awoodooda waa u diiday. sidaasna waxaa lagu soo gabagabay groupkii B iyo groupka A. kooxaha A ku dhamaysta kaalinta koowaad waxay la dheeli doontaa kooxda kaalinta labaad ka soo gasha B, halka kooxda kaalinta koowaad B ka soo gashana ay la dheeli doonto kooxda kaalinta labaad C ka soo gasha, aan A ka soo gasha. marka waxaa la xaqiijiyay labadii kulan ee ugu horeeyay ee wareegga 16 oo ah Ingiriiska oo la ciyaari doona Senegal iyo Netherlands oo la ciyaari doonta USA. kulamadaas daan fiirnana oo si qiimeynana Ingiriiska runtii chance fiican ayuu haystaa la dhihi karaa oo Senegal uga badi karo. Senegal waa koox marka la fiirsho kooxaha Afrika waxaa la dhihi karaa marka laga reebo Ghana kooxda labaad ugu awoodda badan la dhihi karaa, laakiin dhanka weerarka way ka liitaan oo saan hore usoo sheegnay Mahrez, Sadio Mane talismankooda uu ka maqan yahay. marka Ingiriiska waxaa loo rajeynayaa inay kulankaas badiyaan. kulankan kale Netherlands iyo USA haddaan fiirnana ayadana waa kulan xiiso leh oo USA inkastoo aysan ayada wax fiican oo hadda lagu sheegay aysan haysan goolal badan ma aysan dhalin koobkan intuu socday. xagga gool dhalinta ay ayaguna ku liitaan, inkastoo Weah iyo wataan iyo Christian Pulisic oo xalay goolka u dhaliyay oo markii dambana ciyaarta laga saaray inuu dhaawacyaha loo malaynayo. marka kulamadan maalinta Sabtida oo wareegga 16 la gudageli doona ayaa la dheeli doonaa. waa kulan xiiso leh. Netherlands ayadana kulan u fudud ayaa la dhihi karaa inay Mareykanka kusoo aado way u fiican tahay, laakiin Netherlands gool dhalinteeda ama xagga weerarka xoogaa cilada ka muuqata, laakiin sidoo kale kooxda macallin Van Gaal xagga difaaca waa koox hal gool laga dhaliyay ilaa hadda 3 kulan dheelin. marka difaac fiican ayay muujiyeen, dhexdooda waa fiican tahay, laakiin xagga weerarka xoogaa shaki ku jira haddii kooxaha waaweyn la dheelaan. markaan haddaan firino kulamada maanta iyo caawa la dheeli doono, groupka C iyo D ayaa ayagana caawa iyo maanta lasoo gabagabay doonaa. kulamo aad u xiiso badan ayaa jira. groupka D ayaa xilliga hore ee 12 xilliga Soomaaliya la dheeli doonaa. waxaa iska hor imaan doona Australia iyo Denmark iyo Tunisia iyo France oo ayadu mar hore iska xaadirisay wareegga 16. groupkan haddaan firino kaalinta koowaad kooxda kusoo baxday mar walba waa France oo ayadu mar hore soo baxday. haddaan firino kaalinta kooxda labaad kusoo bixi kartana Australia ayaa hadda 4 dhibcood haysata, halka kooxda Denmark ay ayaduna haysato 1 dhibcood, Tunisia ay haysato 1 dhibcood. marka France inay ka badi doonto Tunisia ay u badan tahay, sidaas darteedna kaalinta labaad Australia iyo Denmark ayaa isku haysta ayaa la dhihi doonaa. ayagana wixii kasoo bax waa la arki doonaa. France iyadu runtii sanadkan waxaa la dhihi karaa waa kooxda labaad ee awoodda ugu badan muujisay marka Brazil laga soo tago sanadkan. ayadii Brazil iyo weliba Spain, inkastoo Spain kulanka ugu dambeeyay xoogaa caajis uu ka muuqday oo ay maaragtay hal la galeen kooxda Uruguay, haddana France xilli hore ayadu iska xaadirisay waxayna la dheeli doontaa kaalinta koowaad ayadoo kusoo baxday kooxda groupka C kaalinta labaad kusoo baxday. Argentina
iyo Poland ayaa ayaguna wada dheeli doona, Sacuudi Carabiya iyo Mexico groupka C oo asaguna runtii ah group aad u xiiso badan oo wax maarta la kala koreeyo gaar aysan jirin. Poland ayaa 4 dhibcood leh, Argentina 3 leh, Sacuudi Carabiya 3 ay leedahay, halka Mexico ay leedahay 1 dhibic ugu hooseeya. Marka Argentina waan ogeyn habeen dhaweed mucjisadii Messi uu sameeyay, caawana maarta mucjiso kale ayaa laga sugayaa oo Argentina inay badiso ay u baahan tahay sida uu xaqiijiyo in kaalinta koowaad ku soo baxday. Marka Poland oo kaalinta koowaad haysata ay la dheeli doonaan, haddii ay Poland ka badiyaan taas macnaheedu waxay tahay inay kaalinta koowaad ku soo bixi doonaan, laakiin haddii ay bareejo galaan waa loo baqaa oo maaragtay in ay haraan ay maaragtay halis ugu jiraan. Marka Argentina iyo Lionel Messi waxay u baahan yihiin inay kaalinta koowaad ku soo baxaan si ay maaragtay isaga ilaaliyaan inay ku aadaan koox adag oo Faransa inay ka hor yimaadaan ay isaga ilaaliyaan. Marka kulamadaas waa kulamo kale oo xiiso leh, waa arki doonaa Lionel Messi iyo waxa uu soo bandhigo caawa. Markaana xagga gool dhalinta haddaan fiirino, Cody Gakpo, Kylian Mbappe, Marcus Rashford ayaa isku haysta gool dhalinta oo min 3 dhib gool leh. Saan hore soo sheegnay ninkan Cody Gakpo ee kooxda Netherlands 3 gool u dhaliyay, 3 kulan u dhalay. Bandhig cajiib ayuu soo bandhigay sanadkan, waxaa arki doonaa sida maaragtay la isugu haysto transfer window-ga iyo kooxda uu ku biiro, kooxda PSV uu ka tagi doonaa. Kylian Mbappe oo asagana bandhig cajiib ku jira ayaa 3 gool asagana leh. Marcus Rashford oo asaguna kulamadii ugu horeeyay baan lagu soo bilaabin, laakiin kulankii xalay lagu soo bilaabay ayaa 3 gool leh. Marka bandhig aad u fiican ayay ciyaarana soo bandhigeen Bukayo Saka, Bruno Fernandes iyo Ragle ayaguna 2-2 leh. Xagga haddaan fiirino caawinta, waxaa ugu sarreeya Harry Kane oo 3 gool caawiyay. Harry Kane inkastoo san World Cup-kan ilaa hadda gool dhalin, haddana wuxuu u muuqdaa runtii inuu maaragtay caawinaadda uu xooga saarayo. Harry Kane basadan waayay dambe ogeyn maaragtay ciyaartiisa wuxuu u wareejiyay xagga caawinta. Marka Harry Kane bandhig fiican soo bandhigay inkastoo gool dhalin, goolashiisana waxaa la dhigi karaa xagga dambe ayuu u dhigtay oo Ingiriiska waxa ay soo bandhiga u arki doonaaho group maaragtay 16 stage ayay soo aadeen. Senegal ayayna la dheeli doonaan kulan xiiso leh, wixii ka dambeeya iyo meesha ay ku soo dhamaadaan waa arki doonaa. halkaas ayaana kusoo gabagabeynayaa falanqaynteeda. haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe ugu cimaamad si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay World Cup-ka kooxdaada iyo guud ahaan kubadda cagta. mahadsanid.